waxaan rabaa inaan ogaado ma hay'adda xaqul insaankaaga akiiskiina gashay يا ma hay'adda xaqul insaanka arrintan gacanta ku haya ها حقوق الإنسان هو أبيه gabadhaada ma hay'adda xaqul insaanka miyaa meel dejiye ها وأبيه way ogyihiin lama rabo gabadhaada hay'adda xaqul insaanka miyaa watay oo meel degsaday ها marka kiiskii kulisoosay way dadka u tuturishin waxay tuturista kulisoosay tuturis soo qabsada waxna turis ma jirto jooji turista marka hay'adaha xaqulsaanka waxay dhaheen kiiska anaga gacanta ku hayay maanta dhanay dadka tuuraysa dadka dhanay tuuraysa maxkamada dacwada maxaa ka qaldan daaro iyagu dawladda maxkamada maxaa ka qaldan dacwada maya ani waxa la hadlaa ma joogin ani waxa la hadlaa nimanka reer Israaqa la hadlay fiiri kiiski gacanta lagu hayaa Soomaa kiiska dawladda gacanta kuma haysa daahir daan isfahanno haye hay'ad baa gacanta igu haysa igu tiri maskaxdaada dajiyaad isku yaacine anigu maan arag dawlad meel taagan oo wax tiri cadaalad baa lagu sameeyaa maxay ahayd sharciga maxay ahayd wixii inantaada waxa ku sameeyaa sharcigu qabanaya daanu ma arkin laakiin anigu hay'ad xuquuqul insaanka inantayda hay'adda xuquuqul insaanka gacanta ku haysa haye laakiin ma arkin de sharcigii waxaan doonayaa wixii inantayda ku dhacay in wax la iiga qabtaan rabaa anigu cadaalad baan rabaa daahir ma adi fahantay imika waxaan u jeedo waaye marka maxaa sameeya hadda aniga sheeg ani maxay ka taan sameeyo itirmo talaabinka qaaday waxaad samaynaysaa in cidday qusaysay gaarsiin marka wasiirka arrimaha gudaha yaa hadda wada hadal lama fahamto haye dadka kiiska ka dambeeya waa la soo xirayaa waxaana waa la qabanayaa buu yiri gabadha noo deji hawshii annagoo Soomaaliland iyo maamulkii iyo dawladdii aan galno maxay ku wata waa sax ya okay sax عقد صار مدحن dhulka ka wada dhigaano ay xajoosi waxa dadka foodeynayso food maxay tahay wala ii tuura koolan baaday wala ii tuura kool daad inuu tuuro way qolkaas xiray soosi qolkaas xiray somaha والله adiga wada la isku soo haray ma ku ka dhigay fadhisay hadda kiisa wadaala kaana ma wax tuur waa u jeeday adaa meesha fadhiye okay tuur dhamaan qofna meesha ma saarnaanayo midda kale daahiro maxkamadda sharci u yahay qof hadaa wareegsanaysi ilaa ka dhamaysato qofnu sadaqadaada soo qabsan ee marka soo qabsan aan tuurinahay ma tuurinahay marka soo qabsan marka daahiro gabadha waa gabar dhiban qodobka koowaad qodobka labaad anigu hooyaan nahay kiiska ugu daran horta noqdo qalbi xanuun oo waad ogeed muddo 4 bilood ilaa 3 bilood gabadha luuqa ku haynay intaasi waxa isdayay bal inay cadaalad hesho cadaaladii gabadhi waa weysay dawladdu u dhaafaan ilaahay ka dhiga daahiro dawladda ha ku sii deynina dawladda la shaqeey gabadhaasi cadaalad ku hesho saqiiradaas xanuunsan ha ka seexanin ala ka shaqeynaa dawladdu xasinaya war kala shaqeey su'aalay dawladda Soomaaliland wan wiig baa siiraya odayaasha Soomaaliland wan wiig baa siiraya haddii dadka la soo xiro kiiskaaga wax laga qabto halkaas wiig aad cadaalad ku hesho waa sidii la rabay hadda cadaalad ku hesho waxa dad qoor dhan loo halaagay waxa ku dhacay gabadhaada ma fahant marka hadda aan gudajiyo haddii wax laga qabo waa kiis adduunyada daahiro waxaan oo dhan magaalada oo ka diiliyay markaas dii wax loo qaban waayay hadda wax loogu qabanaa aniga hadda kiisku ay yimid waa wiil la hadlay hadda gabadha inaa ka artmaan abti gabadh madaxa looga jiro xanuunsan haddana la dulmiyay la leeyahay waa la uuriyay laba qof wax ma uuraysay qof un baa uureeyay
sheekada inaa ka daba hartamaan abti waxaan adeer macaan adeer daahiro taladaada tala ka wanaagsan ma lahan 1 week aasiina dawladda iyo dadka kula soo hadlo madaxda ah nala socona DNA test na laga qaado daahir DNA test cunigaas laga qaado ma fahanti qofka uu reew leedahay ma fahanti horta gabadha deewsid loo duyan maba dhalin bee Faadumo aadanay habaryaal maba dhalin gabadha laga qaadi karaa you know what I'm saying okay I don't know Sultan Hassan Kenya go'aan soo qaadan والله شكي الزقلين وماشى بسم الله الرحمن الرحيم يقول هذا مسكين ما فيه يقول لك والدبتي maxaa loo dhibaateen waa iyadana mahsani hooyadana hal cunug ay haysato sidaas looga sameeyay nolol u taalo Allah ilaahu bilmiga nooga aal Sultan ها ما مقليسا روبا دايعه خدka iga culus ma la maqlaya ma la maqlaya niyo daarto waa salaamaya daayro horto WhatsApp-na kala hadlay hawshan waan fahmay information-keedina waa la soo diray dad bay la soo hadlay waana la soo wacay niyo anu dani weyn odaya oo maxkamadda ka tirsan oo member ka abaanahay caaw waxaan rabay wixii gabadha dhigjo jini arrimaha kale u yaala waa okay waa ogolahay waa mawduuc ogashahay nidaamka maxkamaddu laakiin kiiska gabadha waxaan rabaa inaan la wareego inaan galo inaan damaal qaado saa ogtahay hadda aanu dani weyn waxa weey Suudaanka guud habar jecla waa ahay chief caaqil waa ahay wasiirka cusub xukuumadana waa ahay waa abahay walaalkii marka hawlaha nin u faraba dhudhuman baan ahay oo wax ka qaban kara marka waxaan rabaa in hawsha lagu qaato maadaama aan ahay member ka tirsan maxkamadda caawa lagu qaato hawsha aan galo wixii dhig joojina waa meeshii insha Allah tabaaraka wa taala wama santii waya su'aasha noo ahaato wiilkiisa wiilkii ugu soo laabo daayro gabadha shaqado ka dhigdeeno waxayro dhig joojina qalbiga ku qabsatay hala siiyo tasbool oo dhiga taas aniga ma go'do nabar weeyaan lagu soo dhaweeyay kamarada arkaysa soo qabad karo kale jirsadeen baan wareeyay Maxamed Murgas waa dhulkii lagu xoqay kaas saddex toojir wey waa ilmo yar Allah laakiin qurux badana ma sha Allah oh my god inuu waa kaasa inuu xanuunsiyo waa u jeedaa ma shay qaaliya inta wataa waxaygu ay tusoo taabsi ka damaamsan ka farax waxaygu ay tusoo taabsi dadku wax qurux kasta ay ka fikiraan waxay soo karaan inta yar maxay ahayd caloosha ayaa ku bad loo galiyay ma calooshaada tus dirac kurqad wad suuraal bas leetay wad xasada u galay waaqaysa kurqad ma kurqad wadiga waka waa bishii lixaad حاملة مياه هذا 8 bilood waa markaas 5 bilood waa dhaxd ilaahay amrust markaas soo duus fiidiga assalaamu calaykum bal hal iyo laba isii bal daahiro waligay meesha soo korin horta kuwin soo sooy aad baan ku salaamaya waana mahadsantahay abaayos telefoonkan wuxuu ii wareerinayaa horta wax laga aamusi kara meesha ma yaalaan waa arrin de xishood iyo xaye ka tagtay weeye adduunkiyo raalli ahaada subxaan allah marka daahirow haddii la yiray de hadda hadalku walaalaalina aamina waaye haddiiba arrinta ay marayso aabba iyo walaal arrintu hadday marayso acuudu bikalimaatillaahi taamaati min sharri maa qalaq meesha horta waxbaa qaldan horta fi shay horta meesha waxbaa qaldan wixii qaldan horta waa in daahirow ilaas soo saar manaali hoos noo joog ilaas quraana ku saar mudreedka manaali ilaas qor soo saar haye socod waxbaa qaldan horta marka ugu horeyso inaan ka hor dhacno mar raba laakiin maskaxdeeda anigu waxba i tusaysaa laakiin inaa baartaa fiican horta waxbaa qaldan anigu
haddii dee aabbaha hadduu waalan yahay iyo hadduu wiilka uu waalan yahay waa meesheeda qofka waalan waxaas wuu sameynaa laakiin aniga aabbahay hadda waa aabbahay gabadhayda ma kufsan karo subxaan allah waa adduun gadoomay weeye subxaan allah gabadhan waa dhiban tahay one weega wax loo kaadinaa iyo sheenadaas dhiig joojin iyo waxaas meesha ma taalo gabadhan waxay u baahan tahay iyadaa maskaxdeeda iyadiibaaban fadhinbo maxaa yeele gabar kaa xanuunsan misna haddana aabbihii adig ku dhalay iyo kii kula dhashay oo misna waa urayeen lagu dhahayo dee yaa rasuulallah wax laga aamusi kara male taani shay wiilkan suldaan sheeganayo aad soo qabatay hoosa wax loo xalina hoosma meesha hoos miyaa joogto horta meesha hoos ma bataalaba meesha sheenada hoos waa ka tagtay gabadhan dhibaataysan haddiiba ood wax u qaban kartaba ay tahay waxay rabtaa hala naf iyo maal iyo hadalbo iyo codbo daahiro iyo akhay caawe ilaahayna ha kula garab galo laakiin arrintan arrin toddobaad la sugi karana maaha arrin oo dhiig joojin iyo sheenadan dhiig joojin yaqay waxa loo sameeyaa qof caafimaad qaba loo sameeyaa gabadhan caafimaad ma qabto gabadhan awlaadeediiba waxa hortaalo aabba iyo walaal baa uureeyaba hortaalo 8 bilood gabadheediyo xanuunsan baa hortaalo walaal macaan marka arrintan oo kale lagama aamusi karo tan waa tii oo jihaadka xataa loo geli jiro waa sheenadan marka waa idin salaamaya laakiin wax aad ka aamusi karta ma daahiro ha fududaysan sheenadan sanad iska one week iska dhaafi xataa maalin ha sugin waxaad u qaban karta gabadhaas u qabo ku ceebay adduunka Allah ceebeeyo wixii saas yeelay waxaana in la baaray u baahan tahay xoogaane wax yar qalada meesha ku jiro waxa ku jiro meesha waa idin salaamaya aadan salaamaya السلام عليكم daahiro fanaanadu way mahadsan tahay Allah sharfo kelmad fiican bay tiri oo xaq weeye waa rumeesh wax badan baa khaldan waxaan rabnaa saxana waxa khaldan waxa khaldan ma saxna insha Allah biidmillaah tabaaraka wa taala daanuna wax ka tirsan maxkamadda ka tirsanay wixii daahir hagaajiyo ayun baan hagaajiyay oo maxkamadda ka tirsan baanahay muhiimadu waa in gabadhaas xaq ay xaqeeda hesho dulmiga ku dhacay aan ogaano aan baaritaan ku sameeyno dadka iyo ehelka iyo cidda wax ku sameeyay hadii wax laga qaban waayana aanu keeno maxkamadan iyo Soomaali u soo gudbino laakiin annaka daahirba wax ka wada shaqeynayna inaan dadka xaqeedu uga soo dhicino dawladda la xiriirno kuma dalbano kaliya ku wakiil karno gabadha cadaalad hesho dadka dhibka geesto soo baaro absolutely cadaalad la hor keeno waxaan ka rabnaa inaan xoga lacaynta orno maamada ay maskixiin bal hadii dhaqaale lagu xoogayo kalento oo kale ay isdabri karto qof ay gacanta waxba ku hayn maxay difaaca kartaa daahiro dadku waxay ku dhaweeyeen aabaheeda hada aabaheeda aad yaad uu joogaa hagu jooga aabeen burcu joogaa burcu ma la hadlo marka asigana la keeno maxkamadda annaga daahiro la hadlaynaa waxa annaga la hadlaynaa daahiro macalaabihi baan la hadlaynaa marka aan wax daahiro ku dhihi lahaa caawa wixii dhig joojina Soomaaliyeed saas siiso kadibna mawduucan anigu aan galo adna ila gal daahiro adna ila gal daqa soo qaada manaari tiim saddex soo qaada waan ay insha Allah barakallahu fiikum manaari soo qaada tiim saddex abtiyo beebida yar aabaheed aawo mawjoo burcu joogtay waa arin aad u xanuun badan wallahi adeero ma aragtay daahir alaabtaneeto koo hala soo hubsado ka bacdi joojino fiican loo sameeyo alaabtaneeto daahiro aabihii iyo wiilkii sawiradoodii aaway wax kufsaday ummadda hal la wada tusay daahiro aabihii iyo wiilkii sawiradoodii daahiro intaan horta furi kaamirada haddaan furo ma hadli kare gabadhaan nafsadeeda halis ay ku jirtaa 3 months nafteeday la cararaysay bishaana ugu dambeysay heshay hay'adda xuquuqul insaanka waxayna siiyeen gabadha intay ka dhalaysa kaliyan ku siinayna haliri kadib gabadha haday ku dhasho shaqana kuguma lihin ma fahanti nolol ma haysato ma noolaan karto wadanka in laga soo wado way gabadhaan nafteeda halis ku jirto mid ugu horeyso nafteeda horta koo hala badbaadiyo iyo gabadheedii ilmaha si dhalan doono إن شاء الله. أيوة فاتحة نوع أخرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم